hayo Joe Biden. Joseph Robinette Biden iyo Kilin Daria inuu soo noqday madaxweynihii afartii had ee dalka Mareykanka. Biden may noqday madaxweynihii ingida-weynay ee wadshay fadhido minka ee duwan 70 jaro. Muddo dheer may hayay senator ku tirsan minka odayaalka saas oo kalena siyaasiyiin hada jari madaxweynaha haweenka Mareykanka xilligii madaxweyne Barack Obama. may qaadatay February inta la ka hagaajiyay guul Joe Biden. dadweynaha Mareykanka hadlan may siyan guul may ata guul weyn si kasta madaxweyne Donald Trump oo wadi su'aal galinta natiijada doorashada may hayn weeray taageeradiisa taasoo sheentay in ka dhigay dhibaato minka Capitol Hill ee baarlamaanka. hadda Capitol Hill may buwa goob ciidan meelaha masaarka may ku dheereeyay dadka fiirsado ka hayn bahi ciidamo fara badan booliis oo ka jaran 25,000 ciidanka qaranka yaro in goobta masaarka si ku bedelan madaxweyne Donald Trump oo hayay ganacsada inta uu sahabiska in koyna. madaxweynaha dooran Joe Biden may buwa siyaasi khibrad leh. Biden ya siyaasadda ka jari muddo 50 sano ka hor lama mar madaxweyne ku hoggaan in hayay madaxweynihii hore ee Barack Obama. Edbiyaalka dalwar yaa limar in dooradan in uu ku metelo senatarka. bilkutib doorashadiisa koowaad hawartiis iyo nocto yar uu soo dalay ka dhimadan shil baawur meelasay oo lama kori uu soo dalay suhu in ka dhaawacmeen. Mr. Biden ya hamin walba harahay tarin oo maray gobol shay dalwar iyo goobtis shaqada Washington. tarinkaasay oo socday 9 daqiiqo si uu si in lurooga awlaadi saminka oo dhan. Biden ya lama mar masqanta qalin in ku sameeyay sanadkii 2015 markii uu sahay madaxweynaha hoggaanka dalka Mareykanka. unagshay weyn boy ya in dhimada kansarka masqanta. Biden iyo hawartis weyn ee jeel professor wal ku dhigo hayn ya ku nool magaalada Wilmington ee gobolka Delaware meelaasay oo ku nool 70,000 qof oo dad may inta ka afmeeraan taariikhdii Joe Biden kimaad sintiin qaabka fayliisin in fiirsataan warka sinsiin ku kooyay TV